السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامج كني ترينت شغالها ما أنتوا حنا كقال دونا قضب مهم أو خصية قف كست أو معاملة عم بها هذا واحدة شغالها عم بها هذا معمل جودة وأنا حرفضه مهم قف كست أو شغالها حرفضهني وشن حرفضات عم بها شن قضب أو أنفعية قف كست أو معاملة عم بها معاملة الشغالة قضب كبده حوي حرفضة فجرك هذا الكلام عم بها public speaking skills كحال هذا يعني حرفة فقارك هذا الكو شيء مهم وقاه قف كسته أو معاملة معناه ما هي نكور هلا يوم مركز تضد كلا دون نكور هلا يوم لكن معناه ده وحويان إنه برانيو أوده أفتح النمذا يو أوده وحكر على عينته سي ضدك والله هلا يوم وحويان وحكر على عين كريو وحنا وفهم سين كريو مركز نقطع حفلتنا وجوه اللي كري سيد وجوه أحسن وايد بعتبر أن يعني بعتبر أن أي كايستها قضب كان هذا الكي يفتح النمذا تديو بدنه جامية له مركز هذا هو جامين تونا waxay xiriir la leedahay aftahanimada qofka hogaamiyo inuu aftahanada waa shay waajib ah oo muhiim ah haddana qofku garanaynin qaabkii dadka xoga dhaadhicin lahaa waxa uu sheegi lahaana way adkaanaysaa in uu dad maamulo marka inuu qofku iska dhiso xirfadda fagaarka hadalku waa shay aad muhiim ah qodobka labaad wuxuu noqonayaa maareynta shirka iyo kulanada muhiimka ah yani inuu qofku maareeyo shirarka oo awood u yeesho in shirarka waxa weeyaan la gelayo oo maamulo oo si fiican u maamulo maareeyana waxay qaybin ka qaadanaysaa in shirkaasi noqdo shir wax ku ool ah ama kulankaasi noqdo wax ka soo baxaya kulan wax ku ool ah in uu gacanta ku hayo shirka oo ajandihiisa iyo waxyaalaha ka soo baxaya wax weyn uu si fiican u maamula waxay qaybin ka qaadanaysaa qodobada lagaga hadlay shirkaas iyo kulankaas in la qoro deetana sideeda wax weyn loo dabaqo dhowtoole oo lagu dhaqmo si aan u soo noqonin qodobka saddexaad wax weeyaan waa xirfadda tala bixinta inuu noqdo qof yani awood u leh coaching skill-kii inuu yeesho oo xirfadii uu ku siin lahaa dadka shaqaalaha ee liita ama yani qofku doonay inuu saxo inuu si fiican wax ugu sheegi karayo oo uu u sixi karayo oo uu hagi karayo qaybin bakatay yani maamulka marka la eegayo marka xirfadu qofku u baahan yahay si uu qofkan u dhiso waa inta badan maamuladu way ka wan yihiin yani dadka ay maamulayaan waa intooda badan walow imika yani la soo fahmay inaanay daadu aanay ku xidhnayn maamulka aanay ku xidhnayn ku xidhantay aqoonta qofku uu leeyahay markasta oo qofku awood yeesho xirfadda tala bixintu oo markasta kor u qaadi karayo dadka uu maamulayo heerkooda garaarada iyo heerkooda yani xirfadeed qodobka afraad waa dhisitaanka kalsoonida yani inuu kalsoonidiisa qofka maamulka iyo kalsoonidiisa dhisto waayo dad badan ta kama qanbaatana isagoo qofkii maamula haddana kalsoonidii baa ka maqan ku soo istaagi lahaa shaqaalaha oo ku qancin lahaa marka qaarkood waxaa jirta in muranada ay ka dhex dhacaan shaqada dadna qofkii waxa weeye maamulka oo kaba dhuntaba dadkii shaqaalaha ka dhinto qancin kari waayo marka inuu qofku kalsoonidiisa wax ku sheegayo dhisaa shay aad muhiim ah weeyaan markasta qofka kalsoonidiisu yani kobcdana oo markasta si fiican wax u sheegi karayo oo markasta dadka wax ka dhaadhicin karayo oo markasta wax cadeyn karayo marka waa shay aad muhiim u ah xirfadana xirfadda shanaad waxay noqonaysaa barashada kala duwanaanta shaqaalaha inuu barto in dadka shaqaale kala duwan isku si loola dhaqmo waayo dhakhtarkuba bukaanka isku si wala dhaqmo isku dawana ma siiyo yani tan macnaheedu waxay tahay marka dad la dhaqmayso ama maamul haw amba yani qof aan cid maamulna haw marka dadka la dhaqmayso waxaad ogaataa in dadku kala dabci iyo kala shakhsiyad duwan yihiin qofna qof aan la shakhsiyad ahayn marka kala barashada shaqaalaha yani iyo waxa hab dhaqankooda amba shakhsiyadooda kala duwanaantooda waxay qayb weyn ka qaadanaysaa inaad si fiican u maamuli karto qof kasta oo shaqaalaana qaabka yani loo maamulayo qaabka loo dhaqmayo si fiican aad u barato qodobka ugu dambeeya waa xirfadda dad dhaqanka inaad tahay qof dad dhaqankiisu wanaagsan yahay inaad tahay qof yani dadka la dhaqmi karayo aan axmaq ahayn inaad tahay qof aan awoodiisa yani u isticmaalin si ka baxsan yani bini'aadanimada ka baxsan inaad tahay qof waxa weeyaan sharciga u isticmaalaya sida ugu wanaagsan yani isagoon cidna ku dulmaynin wax ku saxaya lixdan qodob waa lix qodob aad muhiim u ah in qof kasta oo maamul oo yani shaqaaliyi amba cid maamulaa oo ka warqabo barto sidoo kale oo horumariyo waxaan rajaynaya inaad fahamteen aad baad mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.